سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسينا هو درسي أفريا فرتناد سورة البقرة، وحاو درسينا نكبل أميا آيات اللباب قل يصدناد كنمد سورة البقرة. رب سبحانه وتعالى آيات كي درسينا هوري waxau inoogu tilmaamay furitaanka iyo dalaaqa iyo furidda haweenayda iyo ninku ay isfurayaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhigay dariiqo amba hab laysku furo. ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u yeelay si laysku xoolo siiyo, ma aha arrin rabbi uu axadna uga tegey, isagaa u qaybiyey, isagaa u garsooray ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaynu soo aragnay haweenaydii ninkii haddii ay afgaran weydo inay u bannaan tahay inay weydiisato furitaan, iyadiiba furidda ay rabtaa ay tahay haddii iyadiiyo ninkii ayna heshiin karayn xoolihiisiina ay badh uga tanaasusho amba ay u celiso. haddaba aayaddani waxay tilmaamaysaa darsigeenna ugu horraysa, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku caddayn ninkii haweenaydii haddii uu furo oo uu ku furo saddexdii dalqadoodba haddii uu ku furo. masalan, ninkii haweenaydii buu mar furay, uu soo ceshaday, haddana mar labaad ayuu furay, uu soo ceshaday, markaa saddexaad waynagii soo marnay furitaankaasi inuu yahay imaa inuu si fiican u haysto ama inuu sii daayo. haddii haweenaydii way ka farabaxaysaa. haddaba ninkii haweenaydii buu furay, markii uu tii saddexaadna furay, waxa weeye haweenaydaa iyo ninkaa wax iskugu hadhay ma jiro. maadaamaana wax iskugu hadhay uusan jirin, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa ninkii haweenaydii ay kala tegeen ay u dhammaatay, haddii uu dib u soo ceshan doono oo uu raabuu jeclaysto inuu soo ceshado muxuu yeeli? qaala tacaala, rabbi wuxuu leeyahy fa in tallaqahaa, haddii uu furo oo uu saddexdiiba ku furo, falaa taxillu uma bannaana lahu ninkaas min bacdu intaa dabadeed haweenaydaa inuu guursaduu la kulmo uma bannaana, xataa tankixa ilaa intay guursanayso sawjan nin hayrahu isaga aan ahayn. ilaa nin kale ay soo guursato mid u bannaan ma noqonayso inuu haweenay guursado. rabbi wuxuu leeyahy fa in tallaqahaa, hadduu haweenaydaa furo kii kale ee guursaday dabadii, falaa junaaxa dembi calayhimaa labadii hore isku qabi jiray muu ahaan korkooda an yataraajaca inay isku soo laabmaan, waa in danna hadday u maleeyaan an yuqiima inay oogayaan xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa, ilaahay diinkiisa inay dhammaystirayaan oo ilaalinayaan waajibaadkii iyo xuquuqdii ay isku lahaayeen, hadday u arkaan dembi ma haysto. wa tilka taasi xuduudullah, ilaahay xuduuddiisii weeye, ilaahay seerihiisii uu dhigay waa sidaa. yubayinuhaa, ilaahay wuxuu xuduuddiisaa u caddayn
liqawmin dad yaclamuun in uun wax fahmaye buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacala halkan wuxuu ku tilmaamay ninkii haweenaydiisii buu furay, saddexdii buu ku furay. laba sidood bay u dhici inuu furitaankii sunnaha ah uu maray oo mar furay, mar labaad furay, tii saddexaadna uu furay. haweenaydu ninkaasi ma soo ceshan karo, waa waan kala male. waa inuu isaga intuu faraha kala baxo nin kale uu meheriyo, ninkii kale uu guursado, uu la aqal galo oo uu la kulmo. deetana haddii ay isku laamayaan waa haddii ninkaasi dib uu u soo furo, ikhtiyaarkiisana uu ku furo. waxaa jira haddaba mid u baahanna waxoogaa isu taagno. nebigu wuxuu tilmaamay 3 jadduhunna jaddan buu ihi, 3 dhabdhabkooduna waa runrun, ciyaartooduna waa runrun buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. 3daa waxaa ka mid ah atalaaq, furitaanka. lama rabo in laga dhigto talaaqii wax lagu ciyaaro, wax yaroo iska fudud lagu dheeldheelo maaha inuu qofku ka dhigto wuxuu haweenayda markaasi kolba intuu kaga nixiyo uu isku qaato inuu niyo waan ku furi iyo hanjabaad inuu ka dhigto looma baana. waa guri, waa ummad karaamo leh, waa ummad si fiican u wada dhaqmaan la rabo, laakiin inuu ninkii si xun u isticmaalo lama ogola. haddaba bal waxaad ka warantaa ninku hadduu intuu idab daraado uu 3dii baad iga tayro 3daba ku wada furo, 3dii baad iga tayro hadduu mar qura isku raaciyo. jamhuurul saxaaba iyo jamhuuru taabiciin iyo a'immadii madaahibta 4 ahaydba waxay isku raaceen talaaqaa 3dii inuu 3nimo ku dhacayo. 3dii baad iga tahay, waxa weeyaan 3dii ayay ka tahay. markaas haweenayda shaqo dambe iskuma yeelanayaan. waxaa la isweydiinayaa ma macal xurmay kaga furmi mise macal karaahiya. almuhiim way ka furantay ninka haweenaydii. maxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina baray sanu qur-aankaba ka arkayno habkii laysku furaayey. ninku hadduu isagu wax dardaro habkii dhaafo dembiga ka qabsada isaga iskugu wacan. cabdillaahi ibni cabbaas ayaa ninbaa u yimid. ninkaasi wuxuu leeyahay haweenaydaydii ayaan furay, 3dii baan ku furay. mayane 100 baad iga tahay, waad iga furantay buu yidhi. markaasaa mujaahid wuxuu yidhi cabdillaahi ibni cabbaas waxoogaa buu aamusay ilaa intaanu isnili talow ninka miyuu haweenayda odhanayaa waad ka soo cesha midun baa la odhane. u aamusay. markaasaa intuu canaan la yimid oo canjilaadna uu la yimid ayuu intuu midkiin soo fuula xamuuqatahu, intuu dameerkiisa iyo gaadiidkiisa soo raaco oo uu noo yimaado ayuu odhanaya yabna cabbaas wuu canjilay, ibna cabbaasow xaggeen anu wax kaaga heli buuhi. ilaahay baanad ka baqin. ninkaan ilaahay ka baqinna makhrajba ma yeesho. ilaahay wuxuu ihi waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja. ninka ilaahay ka baqa ilaahay makhraj buu yeelaa. adigu rabbigaa waad caasiday, haweenaydaadina way kaa furantay, shaqa iskuma lihin. bal arrintu waxay ahayd sadankii cumar ibnu khataab ijmaac dhacay bay ahayd. cumar ibnu khataab sidan buu xukumay ninkii 3dii haweenaydiisa isku raaciyey inay 3dii ka tahay. saxaabadii way garab wada fadhiyeen, ninna kuma qoonsano kuma diidin. idan ma aha wax haweenayd inta lagu ciyaaro talaaqa layskaga hadhadlo lagu hanjabo ma aha. haweenaydii rabbi wuxuu leeyahay fa in tallaqahaa, ninkii haddii uu furo oo 3diiba ku furo, falaa taxillu lahu uma bannaanaanayso min bacdu intaa uu furay dabadeed, xataa tankixa ilaa intay guursanayso sawja nin kayrahu isaga aan ahayn. ninkii guursanayey maaha inuu noqdo muxallil. muxallilku waa maxay? wallaahi hebel iyo heblaayo aan caqdi iyo meher ku xidho deetana aan furo si ay isku guursan karaan, ama inta saaxiib lala soo sheegay guurso oo ii soo daa la idhaah ma aha. waxau nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi alaa ukhbirukum, war ma idinka warramaa bitaysi mustacaar, orgiga lasoo gaadiid qaatay amba lasoo kiraysta ma idinka warramaa? haabaydaan rasuulka ilaah waa ayo. wuxuu ihi almuxallil waa ninka haweeney nin 3dii ku furay inuu u xalaaleeyo un raba, isagu guurka ma rabo, laakiin intuu guursado oo magacii guur ku dhaco inay ninkii hore u noqoto unbuu rabaa. lacana allah, ilaahay wuu nacdalay buu ihi nebigu almuxallila waalmuxallala lah, kan wax loo xalaalaynaya ee naagtii intuu guursado si uu kii kale ay ugu noqoto, iyo kan loo xalaalaynayo labadaba ilaahay naxariistiisa uu ka dheereeyey. maxaa la rabaa markaas? caqdi ma aha. shuruudda waxaa ka mid a ninkaa labaadee guursaday haweeneyd waa inuu u galmoodo. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa u timid
امرأة رفاعة صحابي الرفاعة لأنه هوين دي سبا أتمد وحيت رسولك إلهي وحي قبي تري رفاعة وإفري مركاسا دلاق أيجيم وحن نقضي دلاق بائن وحن قرسدي يعني صدح دي بوفري وحن قرسدي عبد الرحمن بن الزبير waxay tiri wallahi cabdiraxmaan ibn zubayr waxba ma haya baytiri wixiisu waa saad mara faraqeedo kala weeyay yaani nimadiisu ma haagsana markaas abubakar iyo rag baa nabiga la jooga saxaabadii kamid ah intuu qayliyay oo dibadda aqalka joogay war bal waxay nabiga kula hadlaysay maani xishooneen la hadla buu yiri markaas nabigu kaleey salaatu wasalaam wuu qoslay intuu ilka cadeeyay dhow la cadeeyay nabigu kaleey salaatu wasalaam ayuu naama waxaad rabtaa inaad rufaaca ku noqotid odaygii hore لا أبو النبي مي كن نقول ميسد حتى تذوقي عسيلته إلى أو خوق الموني أبناء بسكوت جدونتان أود ملاجير ويسد دميني سكهر لما أركو بكو حشر ديا وأنا ولي بنك عدم بيجورسدي أو قلمولو خبوا عليه فإن طلقها خدي فرو منكي كلا أي اختيار كيسيس كجفري فلا جناح الذنب عليهما كركو دمو أهان أن يتراجع إن إسكول لامان وإن ضنا هدي ليان أن يقيم إن أوغيان يبوحنيان حدود الله إلهي سبحانه وتعالى حدودي ساب ربي عليه وتلك تاس حدود الله إلهي سيريسي حدودي سوي يبينها إلهي سبحانه وتعالى وهو عضين لقوم ضد يعلمون أرنتا أقرنا يقول ربي سبحانه وتعالى ربي عليه وإذا طلقتم خديئة فرطان النساء هوينكي أو فبلغنا أي دواتو أجلهن أجشودي مدشودي حلقي أي عددودي فأمسكوهن حيستا بمعروف سفي عن أقبا أو صرحوهن أن بسيدايا بمعروف سفي عن سيدايا ولا تمسكوهن هنأو هيساننا درارا لبدرتيد لتعتدوا سعد قحد قدبتان ومن روحا يفعل سمية ذلك السدا فقد وحا دبا ظلم إنو الظلميي نفسه نفتيسا ولا تتخذوا وركيا لننا آيات الله إلهي آيات كيسا هسوا وحلقوا ديالو واذكروا حصى نعمة الله إلهي نعمديس يقلديس عليكم كركينا ويدينكو قلديي وما كينا حصوصتا أنزل أسودتي عليكم كركينا ومن الكتاب كتابا والحكمة مرتئا بالصناعة يعدكم إله إذن كوان به كاسب إذن كوان رب سبحانه وتعالى واتقوا الله إلهنا كبقى أو اعلموا أقادا أن الله بكل شيء كستبا عليم ألا الله صعود إنو يهي إلهي سبحانه وتعالى هل كان وحو تلمامية طلاقي رجعي هاي نكو سوء الشنكري هويني دا نكي هويني دي سيبو فري وحو كفري طلقت بو كفري وإنو مدى سوء الشدو مدى دا عددا أنك صورني انتاني دمان وإنو سوء الشدو لكن هدو عددا أي دماتو هويني دي ومدح بنانان isagii xaqiisu ceshiinta ma yeelanayo ragay ula sinni ninkii soo doonaba way aqbali kartaa kii hor iyo kuwa dambe waa isku mid laakiin intaanay ciidadu dhamaan hadduu damac iyo hunguri idinka hayo soo ceshada laakiin rabbi wuxuu leeyahay anaa quluubtiina og anaa idinla socda inaad haweeneyda ku salcisaan ood ku saxarilisaan awgeedna ha u soo ceshanin buli rabbi subxaanahu watacaala waidaa dallaqtum haddaad furtaan annisaaa haweenkii oo fabalaqna ay dhowaato gaadhaan yani ay dhowaato afka saaraan ajalahunna madashoodii ciddadoodii oo 3 bilood ay dhammaanayso faamsikuhunna haweenkii qabsada bimacruuf si fiican u qabsada oo reernimo haweeneydu waa soo ceshaday dhaha aw amaba sarrixuhunna sii daayo fura bimacruufin si fiican iskaga fura haddaad doonto inaad haysatidna soo celi intaana ciddadii dhammaan haddii aanad rabinna iska sii daa rabbi wuxuu leeyahay walaa tumsikuuhunna ha qabsanina haweenkii oo ha ceshanina diraaran dhib darteed aad dhibaysaan ha u ceshanina litactaduu si aad ugu xadgudubtaan tan waa silcin markan furaba waan soo celin maya waxaa tihin dad walaala ah
islaamnimadii iimaankaad walaala ku tihiin haddaad iskaran weydeen ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana wax khayr qabuu ku siin iyadana wax khayr qabuu siin si fiican oo qurux badan oo sharaf badan isku sii daaya buli rabbi subxaanahu wa tacaala ama si qiimi badan isku qaba rabbi wuxuu leeyahy waman yafcal ninka sameeya daalika arrinkaa haweenaydan inuu dhibo unbuu rabaa faqad waxaa dhaba dalama inuu ninkaasi dulmiyey nafsahu naftiisa ilah wuxuu leeyahy walaa tattakhiduu ha ka yeelanina aayaat illah ilaahay aayaadkiisa iyo axkaamtiisi baa saa idiin kala xukuntay ha ka dhiganina husuwan dheeldheel wadkuruu xasuustana nicmat allah ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu idinku nicmeeyey wamaa kiina xasuusta anzala calaykum ilaahu korkiina soo dejiyey idinku soo dejiyo min alkitaabi kitaaba qur'aanka ah ilahay qur'aanku idinku soo dejiyeyna xasuusta buli rabbi subxaanahu wa tacaala iyo hanuunku idin hanuuniyey iyo walxikmati xikmada iyo yacidukum ilaah wuxuu idinku waanin bihi arrinkaa wattaqu llah walilaah ka baqa waaclamuu ogaadana ana allaha allah bikulli shayin shay kastaba caliim alla og oo la socda inuu yahay ogaada buli rabbi subxaanahu wa tacaala halkan waxaynu markaasi arkaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu leeyahy haweenkii intaanay ciddadoodii dhammaan soo ceshada buli rabbi subxaanahu wa tacaala halkanna arrin kale marka aayaddani tilmaamay rag baa haweenkoodii ilaa intii ciddadu ay dhammaanaysay aan soo ceshan ninkaasi markuu soo ceshan waayey haweenaydii maxay arrinkeeda noqon doonta macqal ibnu yasaar saxaabigii weynaa saxaabada rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ka mid ahaa ayaa walaashiibuu nin u guuriyey muslimiintii ka mid a cahdigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ninkii baa qabay deeta ninkii wuu furay wuxuu ku furay dalqad laakiin ma soo ceshan ilaa intii ay ciddadii dhammaanaysay markay ciddadii dhammaatay haweenaydii waxay noqotay tuu iska madax bannaanaatuu soo ceshan waayey markaas haweenaydii waxay jeclaysatay ninkeediina haweenaydiisii buu iska rabay ninkiibaa haweenaydii soo doonay waxaana u yimid markaasi saxaabigii isagii oo leh haweenaydii ii soo celiya waxa uu yidhi macqal intuu carooday yaa lukac wuri doqonow wax akhlaaq darridaada ma intaan ku maamuusay oo aan ku sharfiyey oo aan kuu dhisay walaashay ood furtay ood sidaa ii gashay ayaad haddana dooni inaan imanka dib kuugu soo celiyo adigoo soo ceshan waayey wallaahi inaanay dib kuugu soo noqonayn ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan buu soo dejiyey rabbi wuxuu leeyahy waidaa tallaqtum haddii aad furtaan annisaa'a haweenkii oo fabalaqna ay gaadhaan oy dhammaato ajalahunna ajashoodii iyo madashoodii ay dhammaato falaa tacduluuhunna ha meermeerinina oo ha u diidina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii hore wa idaa taraadow hadday iska raalli noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi si fiican caqliga iyo sharcigaba si ku fiican haddii ay damcaanna isku qabaan idinku ha horjoogsanina weligii ka mas-uulkaha gabadha ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyihi ha u diidin hana ka horjoogsan hadday labadii hore istoonaan daalika sidaa ayaa yuucadu bihi lagu waanin man ruuxa kaana ahaaday minkum xaale idinka uu idinka mid yahay yu'minu mid rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhir maalinta aakhire ee dambaysa daalikum kii naas baana askaa lakum idiin dahirnaan badan idiin nadiifnimo badan wa adharu idiin daahirnimo badan daalikum kiinaa laydinku waaninayo oo ah inaad awaamirta ilaahay qabsataan ayaa askaa dooroon idiin fiican lakum idinka oo wa adharu idiin daahirnimo badan saasaa idiin fiican dunuubta idinka maydhi dhibta idinka ilaalin doonta rabbi wuxuu leeyahy wallaahu allahna yaclamu wuu og yahay wax wa antum idinkuse laa taclamuun waxba ma garanaysaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala haddaba waxaan halkan ka fahmaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddadan uu yeelay xikmaddii loo sharciyey amba loo yeelo ahayd kow in la ogaado riximkana inaanu markaasi waxba ku jirin si aanay nasabadu iskugu qaldamin odaygii hore iminka soo furay mid kale hadduu guursado abtarkii iyo wixii baa isku laaqmay si aanay taasi u dhicin ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddadu u yeelay tan labaad ilaahay ciddadan wuxuu u yeelay waxa weeye waa cibaado si ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa loo qaato
oo loogu qaato markaasi awaamirtu bixinayo tan saddexaad waa inuu ninkii markaasi iyo haweenaydiiba ay dareemaan qiimiga uu leeyahay arrintan ay ku jiraan wax sahlan aan ahayn arrinka weynayn la weynaynayo awgeed weeye tan kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu fursad siinayaa ay ku fakiri karaan ninkii iyo haweenaydii si ay u dooran karaan wixii iyaga u khayr badan marka rabbi wuxuu leeyahay wallaahu allah yaclamu isagaa wax walba og wa antum idinkuse laa taclamuun waxba ma ogidin wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته